السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا يوتيوب channelka بروان دمان داودياشا inta nagu xiran waxaan leenahay maalin wanaagsan ninkii maalin tahay maalin wanaagsan qofkii habeen u tahay habeen wanaagsan waxaan dhammaan idiga codsanaynaa intii asxaabtana lahayd waad mahadsantihiin intii kale waxaan idiga codsanaynaa share like iyo waliba comment daawadayaal tani waa Rwanda waa wadan 1994 gaala dagaal sukeeyay keeshii waxay muujinaysaa natiijada ay leedahay cafisku ummadii markay cafiso walaaloodo ay ku tashadaan ay ka tagaan tagtadii ay ku tashadaan timaadada ummad waxa ay suurta gelisaa marka ay walaaloodo ay ilowdo wax wal oo xumaan aha oo dhexdooda hore uga dhacay waxaan aynu arkayno oo kale tani waa Rwanda ma aha wadan khayraad leh ma aha wadan bad leh ma aha wadan dahab macdan iyo waliba shigaal mid toona leh laakiinse waxa ay leeyihiin dad walaalo ah oo ku fikiray inay ka bixi karaan walaalayn dib heshiisiin iyo waliba ay saari karaan dhibta horumarka wadada ay cagta u saari karaan Rwanda hadda waxay ka mid tahay wadamada ugu wanaagsan ee Afrika ku yaala waxa ay kaalinta koobaad u gashay wadanka ugu nadaafada badan Afrika waxa ay kaalinta koobaad u gashay wadanka ugu systemka wanaagsan leh qaaradda Afrika waliba East Africa taas kuma iman wax fudud ee waxa ku timiday ummad markiisa afiso ilowdo wixii shalay dhacay ku tashato wax bari soo socda ayna ogsoonaato midkoodba midka kale inuusan ku xoog weynayn ummad kasta marka ay ogaato midkoodba midka kale inuusan ku xoog weynayn waxa ka dhex dhasha quruxda wanaaga iyo waliba dalaalka u jeedaan Rwanda hadda waxay u diyaar galoobaysaa Christmaskii waa ciidooda waxay ciidayaan ciid ka duwan 1994 waxay wala joogaan dad ka duwan dadkii 94 maanta Rwanda waa hal dad hal dal hal calan iyo waliba hal ummad Rwanda ma kala aha qabaa'il sidii 1994 kaliya maanta Rwanda waxa ka jira ummad la iraahdo Rwandis ay kama jirto ummad la iraahdo qabaa'ilka isku dilay ma jirto mid badan iyo mid yar ma jirto mid awood badan iyo mid awood yar ma jirto minority iyo majority waxa jirta dad muwaadiniin ah istay wadankoodii ka dhigay wadan cid waliba ku soo hirto ka dhigay wadan system dawladeed oo qurux badan u ka jiro dalka ka degan dhammaantood waxa ka sareeya sharciga ilaa madaxweynaha waxay ilaashadeen waxay wala qorteen waxa ku dhaqmeen heshiiskoodii taas oo suurta gelisay quruxda maanta aynu arkayno ummadii markay ilaashato heshiiskii walaalnimo ay dhigteen wuxuu doona ahaadee ay kuna dhaqmaan fuliyaan waxa timaada qurux aynu u jeedno hadaba daawadaya su'aasha aniga adiga iyo ininka in agtaala waxay tahay maxaa hortaagan 40 sano Soomaali inay heshiin weyn maxaa inaga baaqday oo caqabad inagu ah inaynu noqono sida qeyrkeen maxaa ina hortaagan inaynu amni qaadano afis qaadano ay walaalowno yeelano hal dal hal calan iyo hal ummada su'aashaasi waa su'aal in suyisa aniga adiga iyo waliba dhammaanteen waa su'aasha in hortaal waa su'aasha aynu ka jawaabi karlaanahay muddo 40 sano ah ma waxa inoo dana in isjiidano ma waxa inoo dana inaynu yeelano 10 calan oo nin walba qabiil walba uu yeesho calan gaar ah ma waxa inoo dana inay nagu hoos dulmanaato khayraadka nimcada dahabka iyo shigaalka inagu hoos jireynaka waxay cadeyn tahay Rwanda khayraadka dal ku jira inuu samacna sameeyay ee ay sameeyaan macnaha ay dadka wax bedela ay yihiin dalka iyo ummadda hab fikirka ay u fikiraan halka ku nool Rwanda waxaynu oran karnaa way naga fikir wanaagsanayeen Rwanda waxa ay ka dhaliyeen fikirka wanaagsan ee ay ku taaba qaateen fikirkaas ayaa ka qiimo badan dahab bad shigaal iyo waliba khayraad kasta oo dhulkeena yaala daawadayaal su'aashan maanta waxay hortaala dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan u fiirso wadan iska dilay 1 milyan kabacdi qaatay qafis
waddan isku dilay qabaa'il sida idinku isku dilay oo kale waddan ka gudbay dhibaato kasta oo innaka ayna soo martay waddan isku tashaday ahna hadda muwaadiniin dhab ah jecel dalkooda dhulkooda iyo weliba calankooda dawladeed walaalayaal sistemka dawladeed oo si qurux badan u shaqeeya waxa uu dhalaa waddan qurux badan oo Rwanda kala daawadayaal hadda waxaanu taaganahay genocide-ka Rwanda waa halka ay sheegay inay isku laayeen 1994kii waa halka ay yaalaan qowfoofkii halka milyan ahay waa genocide-ka inaga soo horjeeda sida aan hore ugu soo sheegnay daawadayaal dadkani waxay ka gudbeen dhammaan dhibaato xiqdi iyo xumaan uga timid dhexdooda waxay qaateen waddo toosan oo ah horumarka waa tayna kuwaynu qaadan laanahay muddo 40 sano waxa waddankan ka dhacay 1994kii xasuuq aad u daran ka bacdi xasuuqi waxa dhacay in heshiiyo laguna qaato deeganaansho nabad iyo walaalayn taasi waxay sababtay in loo sameeyo Kigali Rwanda genocide dhammaan lagu xuso sanad kasta kaas oo macnaheedu ay tahay in loo xuso si loogu cimro qaato oo loogu tusaale qaato mar kasta goor kasta daqiiqad kasta oo la filayo inay soo laabato ilaa hadda meeshaas waxa yaala qolfoofkii dadkii la laayay ujeedkuna ay tahay in la tuso jiilba jiilka uu ka dambeeyo dhibaatada ay leedahay qabaa'ilku la tuso dhibaatada ay leedahay kala awood badnaanshaha kala itandarnaashaha ummad waliba ay isku geysato waayo dadkii waxay ogaadeen haddii la isku awood sheegto inaysan la kala itaaroonin laakiinse la ismarin doono waa waxa ay qaateen ay ka gudbeen hore ay uga socdeen daawadayaal hadda waxa aynu ku sugannahay meesha iyada waxaynu tagi doonaa meelo badan oo waddankani taariikh aad iyo aad u fog u leeyahay Rwanda hadda waxay ka mid tahay wadamada ugu horeeya Afrika muddo ka yar 30 sano hadda waxay ka mid tahay wadamada ugu nabadgelyada badan la Afrika muddo ka yar 30 sano hadda waxay ka mid tahay wadamada ugu horumarka badan la Afrika muddo ka yar 30 sano taas oo ku timiday iska saamaxaad walaalayn iyo ummad hal mid ah hal qof ah hal shakhsiya hal jiila